inqilaab lagu qabtay magaaladii afarta gees laga xiray dadkii aan soo wada safnay marka ciidankan kumandosta u daata guryaha loogu galaa qaarkood ayagoo gudad ku jiro gudadka lagala soo baxa mararka qaar ayagoo qaylaha nimanka saa u malaysiin maahano nimanku saas wada geesiyaal saas uma wada ah markay baabuurta isku soo xiraan bisay ummadda qarxiye qaanin maahane ma naf badan taargeday annaga noo tahay micnaha waxbaan ka raadihaynaa ma ahan micnaheeda marka inaan magaalada qabsadeen waxaa ka u dhabar jab adag ayaga in magaalada intaan qabanna dadkii ugu muhiimsanaa oo indhaha u ahay aan ka soo qabsan waa nooc loogu talagalay nimankan in lagu argagax geliyo magaaladaas marka intaan la aadin ka horna inta qofoo ku nool waxaa lagu daraa qorshaha dagaalka lagu daraa magaaladaas marka waa la arbushaa waa la dhibaateeyaa wixii ku jirana waa la soo qabtaa hal xaba lagama soo tago laakiin ayagoona ogeyn ayaa lagu sameeyaa ciidankan danabna aaday uga naxaan markay meeshay ku arkaan maxaa yeelay ayaga dadka ayagaa gaado shabaabta sidooda dadka waa gaadaan kuwa magaalada jooga iyo kuwa baadiyaha joogaba oo jabhadaha ah iyo kuwa amniga ahba oo magaalada ikhtiyaalaadka ku oo bisooladaha ku hubaysa labadoodaba shaqadooda sidoodaba gaadmo waay haddii marka ayaga gaado aaday u neceb yihiin ma jecla marka ciidankan danab waxay ku neceb yihiin waxaa waaye waxaa laga yaabaa inuu maantoo kale meeshaan iskaga shaaxayhayo magaalada iskaga fadhiyeen caawadoo kale iska fadhiyaan sablaale ama kuntuwaare iska fadhiyaan hal mar dushooda ay ka arkaan ayadoo la taagan yahay daljarkii hordee togsan dhaabanayo dawadana absideeyu dadaalaya daljarkii hordee togsan dhaabanayo dawadana absideeyu dadaalaya bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam waa maasantiin idaacadda ciidamada qalabka sida saa ogtahay dalka dhan waxaa ka socda howlgallo ballaaran oo ay fulinayaan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ciidankan danab wuxuu ka mid yahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed howlgalladaasna ayagana qayb weyn ayay ka yihiin oo waxaan dhihi karnaaba laf dhabar ayaga u ah ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaad saaran waajibaad weyn oo ay ka mid tahay inay difaacaan dalka dadka iyo diinta ilaalinta state-ka iyo dawladnimada qaybtaasna qaybay ka yihiin ciidankan danabna haddaan si gaara kugu sii sharaxo waxa ay si toos u hoos tagaan taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo asigay ka amar qaataan wixii awaamira iyo wixii waajibaadana halkaas ayaa loo soo marsiiyaa howlgalladana sidaas ayay ku galaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ka tirsan yihiin sharaxaadooda guud markii aan ka hadlo howlgalladan hadda socdana qayb ayay ka yihiin waliba waa qaybaha ugu muhiimsan ayaga ayaa qabta for example haddii ay noqoto in magaalo la weeraro kale cadowga la rabo in laga sifeeyo sida hadda qorshihii buundooyinka howlgalkii badbaado oo buundooyinka lagu qabanayay ka bilaabo Sabiib iyo Caanole Bariire oo Dhiigle ilaa Jannaale oo ugu dambeysay qabashada ayaga iska lahay oo waxa loogu talagalay awoodda koowaad oo marka koowaad face garaynaysa cadowga oo ka hortagay inay ayaga noqdaan markay ayaga burburiyaan oo ay islaaxiyaan oo ay dhan walba ka nadiifiyaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaybtiisa kale ee loogu talagalay inay deegaan ka noqoto dhulkaas ama joogto ayaa waajibaadka la wareegaysa ciidankan kalena uu sii soconaya oo danab oo commandos tali aad u mahadsan tahay danab ciidanka commandoska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed inta badan waxay fuliyaan waxa laga yimaada howlgallo qorshaysan baa jira oo ay fuliyaan ciidanka howlgalladaas waa mahadsan tahay waa jiraan howlgalladaas qorshaysan howlgalladan horta ciidamada danab ay fuliyaan waa laba nooc waa nooc loogu talagalay nimankan in lagu argagax geliyo for example ayaga waxay sameeyaan saa ognahay magaalada Muqdisho kale waddo ama dad shacab meel iska joogaan baawur qarax inta keenan ay ku qarxiyaan dadka shacabkii meesha joogay waxay ku ridaan wadna kurkur naxtin hooyo masaakiin wax iska gadahaysay ku laayaan dadkay ku xasuuqaan dhibaatooyinkaasi ugu geystaan dadkina meeshii qoladii qarax oo ku dhaca maahan dadka kale oo aana joogin argagaxa ku dhaca meel walba ay joogaan marka howlgallada qaar waa howlgallo ayaga lagu argagax geliyo oo for example waxa lagu sameeyaa waxa lagu target gareystaa nimankooda ugu sarreeyo madaxda ah ayagoo ilmahooda la jooga ama guryahooda jooga ama magaalooyinka ay haystaan kamida loo daataa ciidankan commandosta u daata guryaha loogu galaa qaarkood ayagoo gudad ku jiro gudadka lagala soo baxa mararka qaar ayagoo qaylaha
nimanka saa u malaysiin maahano nimanku saas wada geesiyaal saas uma wada ah markay baabuurta isku soo xiraan bisay ummadda qarxiyo yaqaanin maahane ma naf badno argagaxaasna kaasaa loogu talagalay oo shakhsiyaadka lagu abbaartaa for example mas-uuliyaadkooda wiilashan yarkaa la soo diraa maahane nimanka xukuma ayaga meelaha ay degan yihiin guryaha ay ku jiraan ama jilib ha ahaata ama jamaama ha ahaata ama bu'aala ha ahaata ama meel walba micnaha magaalo walba ay joogaan meel uusan ciidankan kumaandoosta uusan tegi karin ay ku nabadgelayaan haddii xogteeda la helo ma jirto marka shaqadaas waa qayb ka mid ah ay qabtaan shaqo kale oo ayadan ay qabtaan waxaa ka mid ah for example ayadoona target ay magaalo ay haystaan oo kale in magaalo dhan la qabto hal mar oo saa hore u aragteen magaaladaas la qabaha marka waxaa loogu talagala markaas wixii ku jira markaas in lagu dhex qabto for example kuwa lacagaha dadka sharci darrada uga qaada kuwa maxkamadaha beebeenta isku sheega oo ummadda ku dhibaateeya oo dhawa maxkamadaan nahay oo qofka sharci darrada ah wax uga xukuma ama ku xukuma ama kuwa wilaayaadka ay dhahaan oo madaxda u ah wilaayaadka ah ama kuwa mutafajiraadka ah oo qaraxyada qaabilsan guryaha ay ku leeyihiin saldhigyadaas aa loogu talagalay ayadan in lagula wareego magaalada dhan magaaladaas marka waa la arbushaa waa la dhibaateeyaa wixii ku jirana waa la soo qabtaa hal xaba lagama soo tago laakiin ayagoona ogeyn ayaa lagu sameeyaa marka marar qaar waxyaabaha ay u necib yihiin ciidankan danab waxaa ka mid ah sababahaas maxaa yeele adiga waxaa iska ilaali kartaa qofka maruu kugu soo socdaa ogtaa laakiin annaga ciidankeenna waqtina ma laha gooray baxayaanna qof og ma laha meelay ka gelayaanna qof ma laha ayagoo la dul taagan yahay un ay arkaan marar qaar inay cararaana isku dayaan orodna meel ku tagayaan rag odayaalay u badan yihiin marar qaar waxay iska dhigaan inay dadka dhex galaan dadkin uma dhex arka qisa hadda qisooyinka ka mid ah waxaa jiray hadda ka hor magaalo aan qaban magaalada sikadiisa ku galan magaalada markaas kadiiska ku galanay inqilaab lagu qabtay magaaladii afarta geesaa laga xiray dadkii aan soo wada safnay dadka markaa soo wada safnay waa la sii kala saarsaara dadka marka la kala qabto waxaa dhacda marka afar ninaa isku soo haray marka nin xoogaa cayilan hilib lahaa ku jiro hooyo marka islaan duq oo waayeel oo xagga kala maraysaa waxay tiri ayadoo way shakis ima la diir rabaa gorba istin ninka anagana waa dareensanayn inuu nimankii yahay maandhow waxay tiri kaas ha sii daynay tiri kii xoolaha naga dhameeyo waaye marka fartay ku soo fiiqday ayadoo duq waayeel ah macnaha wuxuu u geystaa dareemaysaa ma ogta inuu xoolihii ka xaalufiyo oo ummadda dhibaateeyo oo sidaasaa ayagana lagu soo wadaa xooga kalaa lagu raadiyaa rag kalaa lagu abuuraa shaqadaas labaadna way qabtaan oo ay burburinta waxaad ka warbixisay in magaalooyinka qorshayaasha iyaga lagu qabto marka aad tagtaan sida qisadan oo kale taariikho ama goobaha aad tagtaan shacabka ku dhaqan markaa la kulantaan dareen noocee kala daran wallaahi horta dadka shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dad dawladnimada raba waay ama meel shabaab haysta ahaata ama meel oona hiisana ahaato dadka dawladnimada way rabaan oo dawladnimadaana gaarin for example marka qaar way ku weydiinayaan ciidanka ma sii joogi doontiin mas waa bixi doontiin su'aalahaas waa su'aalaha ugu badan ay na weydiiyaan ma fahmayso daadis waa hadda qorshihii dhammaay oo howlgallada loo bedelay oo dawladdu u bedeshay oo dhul haddii la qabanaa ciidankii qaba lahaayna waa inuu socda oo taliyaha xoogga oo hogaamina oo mar walba dejiyo qorshahooda oo u diyaariyo ciidankii meesha degi lahay aana meel la iska tegin ilaa meesha dadka degi lahay la sameeyo howlgalladan anaga aan fulin waa qorshe gaar ah laga leeyahay oo maanta oo kale bu'aala inaan tagno ama aan tagno meesha la yiraahdo Carabow oo 50 kiiloomitir u jirta bu'aala aan u daadano taargeday anaga noo tahay macnaha waxbaan ka raadiyeena ma ahan micnaheedu marka inaan magaalada qabsadana waxa ka u dhabar jab adag ayaga in magaalada intaan qabano dadkii ugu muhiimsanaa oo indhaha u ahay aan ka soo qabsan qorshahaas waaye laakiin qorshaha xoogga dalka Soomaaliyeed u degan waa in dhulkii la tago si loo tago aan dib dambe looga soo laabo qorshahaasna taliyaha xoogga awaamirtiisa iskala asigaan ka suugeynaa meelaha xiga ee la qabaha asana nasoo hagaado alina taliyaha ma san tahay waxa jira marka aan meel ku joogtaan ee argagixisadu ka war helaan ama ay socdaan way ka yaacaan deegaanada waxaad soo qaadan karo marka deegaan ay ciidanka kumaandoska danab ku socdaan ay maqlaan danab kumaandoska ku socoto deegaanka way ka sii yaacaan see u aragtaa markaas yaacitaanka waxaa keenaya nimankaan horta niman oo si kafoola dad u dirirama oo for example inay dadka qofka soo gaadaan oo ay soo aruuriyaan oo gaari qarax ay soo aruursadaan oo kadib ay qofka ay la soo aadaan magaaladii ama xeerada ciidanka oo jooga maahan fool markay imaato dagaal toos sidoo ma jecla ciidankan danabna aaday uga naxaan markay meesha ku arkaan maxaa yeelay ayaga dadka ayaga gaado shabaab sidoo dadka waa gaadaan kuwa magaalada jooga iyo kuwa baadiyaha jooga oo jabhadaha ah
iyo kuwa amniga ahba oo magaalada ikhtiyaalaadka ku oo bisooladaha ku hubaysa labadoodaba shaqadooda sidoodaba gaadmo waay haddii marka ayaga aag gaado aad u nicib yihiin ma jecel marka ciidankan dan waxay ku nicib yihiin waxaa waaye waxaa laga yaabaa inuu maantoo kale meeshaan iskaga shaaxayhayo magaalada iskaga fadhiyeen cawadoo kale iska fadhiyaan sablaale ama kuntuwaare iska fadhiyaan hal mar dushooda ay ka arkaan ayadoo la taagan yahay ninkiina uusan filahayn hujuum xoog leh oo xoogga dalka Soomaaliyeed oo soo socdana uusan maqal magaaladii oo xiran nimankiina waana dul taagan yihiin sababta marka waxaa keenay ayadoona anagoona xataa ku socon mararka qaar inay iska kala cararaan waxaa keenaysa magacaas danab ka cararaan taasaa sabab u ah waxaa jira marka deegaan la wareegtaan oo kale dadka shacabka ah waxaa inta badan la arkay idinku caawimaya dadka shacabka bal shaqadaas iyo ujeedka aad ka dambeeyay qorshaha horta dadka in la caawiyo ka dambeeyay waxaa waaye dadka horta marka loo tagaa oo magaalooyinka la qabana dadka dhulkan howlgallada hadda badan laga fuliyo dhulkan beeraleyda waaye dadka dad iska beeraley waaye dadka waa la dhibaateeyay aad loo dhibaateeyay xoolaha laga qaatay nimankan waxaa waaye heer baash waxay gaarsiiyeen maamada masaakiinta oo beerta falaha inay lacag dul dhigaan xoolihii sidoo kale dadkii oo dhan way dhibaataysiin marka xoolana ma haystaan agabna uma soo baxo beerihii waa ku dhiban yihiin dadkii marka dul tagta marka qayb anaga waxaan leenahay oo samig la yiraahdo arrimaha bulshada ah oo qaabilsan inay dadka raashinka siiso raashinkeena u qaadnaa raashinka meesha loo dejiyaa magaaladaas markii intaan la aadin ka horna inta qof oo ku nool waxaa lagu daraa qorshaha dagaalka lagu daraa taliyaha xoogga qorsheeya kadib tiradooda iyo waxooda riboodkooda asaas nagula siiyaa qorshe guud oo taliyaha oo soo dejiyana waaye saasaa lagu siiyaa raashinka iyo wax allaale wixii markaas lahaaya dadkaas masaakiintaana saasaa lagu badbaadiyaa oo wax lagu siiyaa oo lagu gaarsiiyaa guryahooda lagu geeyaa ayagana wax weyn ay u tartaa oo waxay dareemayaan dadkii dowladnimada inay soo gaartay waxaan hadda ay ku dul nool yihiin way ku qasban yihiin maahan wax ay rabaan ayaga oo rabitaankooda ah ma ahan oo dadku waa qasban yihiin dad qasban waay